asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haddii aan custaan ugu soo bir haddii aan joogtin waa kumaastala joogkaaga. waxaan tagay maanta booqday maqaayad uu leeyahay ninkaa meeshadii ka muuqdo. maqaayadan waxaa lagu sameeyaa canjeera xabashiga aad u macaan, laakiin dooda waxay ahayd aniga canjeera ayaan iska doonanay. sheefkina waa kana oo maqaayad iska lahaa af soomaaliga waxay roo yaqaana maasha allah, laakiin waa fiicanba maasha allah. waxaan weydiiyey su-aashii ahayd meeqa sana ay halkaan furan tahay, waxay ugu jawaabay sida tan. Das ist hier der dritte. Ja. So, okay. Und jetzt hier schon 4 Monate. 4 Monate. waxuu dhaha 4 bilood furan tahay. kadibna waxaan weydiiyey maxaad iibisaa, ma canjeero kaliya iibisaa mase waxyaalo kaleeto? waxaa uu ku jawaabay sida tan. Wir haben alle ägyptisches Gericht. Okay. Injera, Kaiwet, Sigawet, Dorowet, Chicken, with French. maasha allah, kulli canjeerooyin kamidka canjeerada tibsi baya aynad canjeerooyin qurux badan. gudaha hadda hore sii galaynaa harfiinayna. halkana maqaayadii quruxda badan, sida aad qurux badan loo habeeyey. kana waa taqaanaan nagama sheekeynayo. miis walba waxaa saaran alaabtan canjeerada lagu keenayaa. maasha allah, sheefti qurux badan waaye, sawir qurux badan meesha ku degan. Ibra, Soomaalida maxaa leedahay kelmad Soomaali 2 iyo 3 ka hadli kadib. Kaas is badan in Soomaalish. Ja, anaga waa in yar maqaana. Maasha allah. Anaga in Jigjiga. Ja. Gabon. Maasha allah. Ja. But I'm long time here. Maasha allah. This restaurant is not only for Ethiopia, but for Somalia also. Somalia, maasha allah. And we have also a good Somali music. MashaAllah, this Somali is now Hassan Samatar. Samatar, yeah. This song is alt song. Yes. Yeah. Yes. MashaAllah. Anytime, welcome. How many years you stay in Deutschland? I'm here now 27 years. 7 years. Yeah, wow. Yeah, it's a long time. Yeah. It's not long, but sometimes it's long. You say you have 3 restaurants in Berlin. Yeah, 3. This one, the 3. This is 3. This is only 4 months, or? Yes. Yes, 4 months. Yeah. How do you like the people if you come to meet Anjera? Oh, so many people here like it in Jera. Yeah. And the old people is happy. Yeah. And I'll try the best one also. Yeah. Tarish. Yeah, for Tarish. And he like Injera is very nice. Wow, and so many questions. Yeah. How is it? How would you make it that? And something, and he can more than German people here. Alla gayan